وفي نستعين على المرضية والدين وصلى الله وسلم على رسول الله أما بعد. waxaan igoli doonaa hadduu ilaahi raaho sharaxaadeena ee ku saabsan xafladan qiimaha iyo raayaha badan leh waxaa qaban doona hadduu ilaahi raaho kowda bisha shanaad 2008 ayadoo ay qalinjibin aad iyo aad ballaaran ka dari doonto Scott Brothers Computer Technology of Institute and Language Center. waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay in kasoo qaybgalkan ama macnaha xafladan diyaarinteeda hirgeli doonto hadduu ilaahi raaho. haddana waxaan geli doonaa qayb ka mid ah sharaxaadeeda hore xafladda ayadoo aan xoogaa ka taataaban doono qaabka macadka Brothers Computer uu bixiyo casharadiisa iyo qaab dhismeedka ku yigalo macnaha qaabka ku shaqeeyo. marka hore waxaan hormari doonaa hadduu ilaahi raaho sharaxaad guud laga bixiyo dhanka computerka. sharaxaadaas oo ah computerka ama markii iskuulka ama macadka oo waxay gelin doonaa ama macnaha computerka xaggiisa qaab dhismeedkiisa ama barashadiisa laga geli doono ayaa waxay u kala baxeen maadooyinka laga bixiyo computer. horta waa jirtaa wax la dhaho computer laakiin computerka wuxuu leeyahay qaybo kala duwan oo baatiyo badan leh. halaas oo u kala baxaan computer software waa marka hore markaad computer baranayso barnaamijka ugu horeeya ugu muhiimsan inaad barato ama aad wax ka fahanto oo loo baahan yahay wuxuu yahay computer software. waxaa loogu talagalay computer software-ka cunuga markii la dhalo wuxuu u baahan yahay kow in habarta ay ku kolkooliso dhabteeda ka bacdi ay gurguriso barto oo meelaha ka fursado istaago ka bacdi oo socdo haddana wada soo markaad computer baranayso waxaa loo baahan yahay gurgurisada dhanka meesha koowaada computer software ina aqoon u leedahay computerka wuxuu gudo iyo wuxuu gooyaba inaad kala fahmi karto computerka barnaamijka laga bartaa barnaamijkaas muxuu yahay computer software. markaad barato computer software oo ah gurgurisada koowaad ee computerka wax laga barto ayaa waxaa ku xiga computer hardware oo ah cilad bixinta ama farsamada. computer hardware-ku wuxuu leeyahay certification qalinjibin ama doonsiin guud. waxaa xiga markaad computer software-ka dhamayso ama aad ka qalinjibiso ay computer hardware-ka isku darsato labadoodaba computer networking wax la dhaho xiriirinta computerada si waxaan aragnaa in internetada markaan galno computer aad fadhiisanaysaa nin kaloo computer fadhiyo meesha maskiinaha aan u fadhiyo ama meesha fadhiyo xagga fadhiisan oo iska kaa dhaho saacad kusoo deyna meeshoo kaa amra oo kaa xiranaya oo kusoo furaya marka barnaamijkaas computerkaas ninkaas kaa xiraya madan kusoo deynaya barnaamijka laga bartaa waxaa lahaa computer network oo Cisco laga soo gaariyey. waxaa jiro computer information technology oo IT laga soo gaariyey. information technology macnaha waxaa la jeedaa computer sanadka ka dambeeyo waxyaalaha ayaa kusoo kordha. IT ama information technology waxay akhbaaraad caalami ah marka wax kusoo kordhaya wixii kusoo kordho la barnaamijka lagu daraa marka waxaa lahaa IT ama information technology laga soo gaariyey. waxaa kaloo jiro computer account wax la dhaho oo xisaabaadka deynta iyo waxyaalahaas lagu barnaamijsado. waxaad arkaysaa farmasi markaad maanta gasho kulligaa aniga waddanka si u guursanaa jirnaa xoogaa laakiin adduumaadka markaad tagto farmasi aad xabad keliya ka soo gadanayso waa lagu xisaabtamaa qofka meesha fadhiya xabadoo gaday inuu deyn ku baxshay inuu kaash ku qaaday maalinta meesha joogo sharaxaadoo ku bixinaya wuxuu leeyahay aniga maanta sanadkan halaana gaday halaana deyn aan ku baxshay wixii faa'iida waa kuwan halaas maan nanayn
marka computer account waxaa lagu bartaa data saa lagu bartaa xabad keliya lagu ogaanaa inuu deen ku bacday inay kaas ku soo gasho lagu ogaanaa marka computer wuxuu leeyahay account marka hore waxaa samayn jiray bii deen baxo buug dheer loo qaataa la qori jiray hadda la camba computer lagu sargeysan aniga financial waa maana awliya wuxuu leeyahay maxaa program maxaa sameys dhax computer la tusaa wixii baxay wixii kaas ku soo galay wixii deen ah inta ku wada arkaa markaas computer barnaamijka laga bartaa maxaa account na allah bag easy ayaa jira computer ka waxaa jira barnaamij laga barto bag easy bag easy gaas asaga accounting ee xoolaha yeeridisi laakiin ay ku kala duwan yihiin accounting aan xoolaha kala galay xabad shilin ama 100 shilin hadaad meel programmiso accounting waa soo saaraa bag easy laakiin jumla ahaan loo isticmaala shirkadda bakhaar macnaha halaas oo loo rugu daadinaya marka halaas loo keenayo marka waxyaalahaas waa jumladaas oo qaadaan bag easy B3 ayaa jira asaga barnaamijka laga bartay B3 ga asaga hadlaa dad badan ciyaaraan waleena kuwaan oo computer mooska la qabsado ciidamo macna meel ku soo daatan amal leeyahay oo soo daadana qoriyada wadata dhac oo garaacay mar xabado rida qoriyada B3 alla barnaamijka laga bartay kulli books iyo haadir ETC waxyaalo badan oo leeyahay buug badan oo laga soo koobi karaysa computer programming marka computer barnaamij badan ayaa waa programming ayaa waxa loo jiro class ayaa jiro control plus P oo plus C plus la PC ayaa jiro SQL ayaa jiro MySQL ayaa jiro VB 6.0 ayaa jiro waxyaalo barnaamij badan ninkii macnaha software barto hardware barto network siwara barnaamijyada aan si macquul ah u fahmi karo marka inta kuma soo koobi karna laakiin waxaan rabnaa aan kasii ogaano barnaamijyada qaybaha kala duwan oo leeyahay computerka ma aha in software laga barto ma aha in hardware laga barto ma aha in network laga barto computer markaad gasho barashadiisa dad badan waxay aaminsan yihiin in macnaha software laga barto markii la barto ka bacda iska dhabe ma aha markaad guri gasho guriga si gal u leeyahay guriga albaab leeyahay albaabku wuxuu sii leeyahay barando sii leeyahay barandada qolka ugu horeeya leeyahay qolkan baa sii jiro samiidaa sii jirta xataa la sii ogaado qolka la sii kala fiiriya marka computer markaad gasho barashadiisa inaa meel uga tagto laga fiicanya computer software markaa barato inaad hardware ku darsataa network ku barsataa ilaa ay sanad ka dambe waxa ku soo kordhay mar hadaa computer barashadiisa gasho waxa ku fiican inaad masqadiga ku shaqaalaysato dowladda marka ardayda asaas ku wargelinayna sharaxaadina meesha isugu soo kala dad dowladda waa mahadsantihiin
الله